badweynta Hindiya oo ku teedsan magaalada Kismaayo ayaa fatahaad xoogan ka geysatay xaafadda Farjano gaar ahaan waaxda Daabyaamba ee loo yaqaan Waamo halkaas oo ay fatahaado barakac iyo burbur weyn u geysatay boqolaal xaafadood oo danyara mas'uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland oo horkacaya madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo doonaya inay ka jawaabaan dhibaatada ay geysatay fatahaada badweynta Hindiya ayaa saakay gaaray goobta ay ka fakadeen biyaha badda kormeer iyo indhayn ay ku sameeyeen meelaha ay biyaha badda ka soo daysay kadib ayaa waxa ay mas'uuliyiintu u fariisteen sidii ay wax uga qaban lahaayeen dhibaatada ay geysatay badweynta Hindiya waxaana kulan ay qaateen kadib ay soo magacaabeen guddi isugu jira maamulka degmada Kismaayo wasaaradda arrimaha bulshada iyo wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha maamul goboleedka Jubbaland waxaana kulanka qayb ka ahaa amar la siinayay hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Jubbada Hoose laguna wargelinayay in ay iyaguna gacan ka geystaan sidii wax looga qaban lahaa masiibada rabbaaniga ee ku habsatay dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo gaar ahaan xaafadda Farjano kulamadaasi kadib ayaa waxaa goobta ka hadlay wasiirka amniga iyo arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish waxaana uu yiri waxaan rabaa inaan maanta xoogaa yar inaan kaga sheego arrin masiibo ah oo ka dhacday degmada Kismaayo arrintaas oo ah muxuu ahaa waa arrin fatahaad ay badda soo fatahday 140 mitir ayay soo goosatay dabadeedna waxay ku soo fatahday xaafadaha u dhawaa muxuu ahaa badda xeebteeda oo meelaha ay ka mid yihiin Daabyaambo ay ugu xoog badan tahay arrintaas marka waxa weeye dad fara badan oo xaafadda deganaa ay ku dhawaa waxay ku sameeyeen barakac biyihiina hadda way fadhiyaan dabeel xoog leh ayaa koosgareysay baan isleeyahay waxaan marka runtii awal la daalaadhacaynay abaar aad u baan waxaan kaloo la daalaadhacaynay shuban biyood baaxad ballaaran leh oo ka dhacay dalka laakiin waxa weeye intaas iyadoo oo ay abaarihii iyo xanuunkii iyo shuban biyoodkii intaa baan la daalaadhacaynay ayaa haddana waxaa soo dhacay fatahaada sidaa awgeed hadda wax badan baanu ku leeqaylinay waxa weeye wali waxaan soo jeedinaynaa abiilka iyagii ahaa war meeshan waxa ka soo socota masiibo qaran weeye ilaahay baan horta marka hore abiilkayga u jeedinaynaa ilaahay inuu naga soo gaaro marka xiga te waxaan leenahay wixii hay'adaha national iyo international ba iyo dawladda federaalkaaba waxaan ugu baaqaynaa war magaaladan Kismaayo waxa ka soo socda masiibo aad ballaaran ilaahay bariyadiisa ka soo koow wixii aad la gaari kartaan waxaan leenahay la soo gaaro waxa weeye arrin aad iyo aad runtii khatar u ah haddaan wax laga qaban haddaan nagu ciidaan dhoobayna oo gurmad yar oo gaaban baan samayn karnaa laakiin gurmadka ay u baahan tahay ma samaynayno insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan helno jawaab positive sidoo kale ma ahan Kismaayo kaliya inta xeebta ay khusayso waxa weeye Juula Jawaay xalay dadkii waa ka qaxay waxayna fuuleen buuraha korkooda madhawa sidoo kaleeto buur gaabo kudaa xoolihii bay xataa laysay oo waxa weeye 13 neef oo geel ayaa ku dhax xeebteeda ay hadda ku dishay xalab biyuhu in alla inta tuulo xeebta ahayd kulligood waxa weeye way saameysay arrintaa marka ma oran karno waxaanu leenahay waa wax ballaaran oo gobolka Jubbada Hoose oo dhan hadda khatarteedu ay saameysay Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga Star magaalada Kismaayo.